وجاول قرب كسوان deegaanka Dhuumoodle waxaa ka mid ah ka tirsanahay maxaabiistii qawaariijta al-shabaab ay ka afduubatay deegaanka Dhuumoodle dhibaato badan ayaa nimankaas kala kulanay qawaariij dhibaato badan ayaa kala kulanay waxyaalo aan la soo koobi karin ayaan ku qiyaasi karaa annaka waxa weeyaan nolosha ariir uga jirna dalka iyo dadka aan waxaan ugu qaybsan aan la arag nolol iyo geerimidna aan ku tirin oo ninka haduu dhinto waa laga samraa iyo maca dawladda Soomaaliya naga samartay oo gulf dagaaleed ay ku tala gashay in maaragtay nagu raaydo yaa odayaasheen oo dhaqameedka naftooda iyo wajigooda ay noo huraan waxay nagu tala galeen godka aan ku jiro ee nagu soo galaan annagoo dhibaataysan oo bukaankeena waxa weey dayactir iyo daryeel midna u sahaysan oo gobol adimadii laabmeen oo gobol jaareen ka soo laabtay iyo godka nagu soo galeen waxay noo sheegaan waxa u horeeyay naftooda in ugu soo biimeeyeen inay isku dayeen libinta inay maarta horaan ilaahay wuxuu fadligiisa ku ahaato amray dhawaaqoodii iyo galiinkoodii ilaahay inuu qawaarij ilaahay uu galiyay nimanka odayaashaana qowlkii uu suurta galay ilaahay uu naga soo fakiyay ilaahay naga soo bixiyay hadda waxaan ku jiraa jiida hore rag afaafka jiidaha qayb kamid aan ku jirnaa 300 aan kor u dhaafnaa reexaaji Saleebaana ka tirsanna jufo gaar iyo oda gaar midna mari waxaan difaacaynaa diintayada dalkayaga kulli hadda wax dhaqan inooga tagaan lama arko Soomaalnimo inay midowda u taaganna odayaashii inta u xarbiyay oo 70 nin oo dhow nimankii xabsiga ka soo bixiyay maanta ay xabsi ay ku wareegaan oo moodmood ay ku xirayeen iyo rag Sooma ay saday nimankaas waa wax aan qaada weynay malaysa weynay dawladda Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa mudane madaxweyne nimanka odayaasha oo dhaqameedka kullay dawladdu wax aad male dawladdu qawaarij sidii u saanjar lahayd ay ku yoolkeedu ahay mudane madaxweyne waa aragna qawaarij go'aanka kala heed waxtarkaaga iyo tilaabada waa aragnaa odayaashaas qawaarij baa ka madax banaanay annaga maanta heegan ku jirna oo Soomaaliya u taagan ay sabab u ahayeen godka aan ka soo baxno bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan nahay deegaanka Dhuumoodle Shurufle Baaladheer rag laga qafaalanahay odayaal noo gurmaday odayaashii waxaan maqlay dawladda odayaashu waa naga xiran yihiin dawladda waxaan ka codsanaynaa sharafta leh odayaashaas naf iyo maal waa raadsheen shabaab ma ahayn odayaasha reexaaji Saleebaan odayaal ahaayeen nabadoonnay ahaayeen ka yihiin raggii raadsheen ilaahay baa ku soo guuleeyay raggaas shabaab ma ahayn qawaarishna ma ahan raggaasay u dhimriyeen walaalahooda iyo dadkaas ay dhaleen dadka la dhashay dadka Soomaaliyeed ay raadiyeen odayaal weeye dawladda sharafta leh waxaan ka codsanaynaa Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha Soomaaliya waxaan ka codsanaynaa ragga odayaasha inaysan handadin afis u sameeyaan oo asxaan falaan soo daayaan waxaan ka codsanaynaa dawladda sharafta leh in odayaasha la soo daayo dadka ay soo daayeen dadka raadsheenaan nahay aabayaasha ayaan nahay ragga xiraayaan nahay waxaan uga baahanahay in la soo daayo raggaas odayaasha in la soo daayo ayaan uga baahanahay anigoo Cali Xasana oo Dhuumoodle jooga oo ninkii raggii la xirta kamida oo 60 iyo 7 nin aan ahayn 68 nin meeshad waa hantaday 68 nin aan ahayn qof xabiskaas ku jiran lama arko dhibaato weyn aan ugu soo gaartay hawsha 3 bilood aan nimankaas u xirnaay wax aan ka hayay lama arag waxaan u dhibay lama arag annagoo waxa weey iska joogno dad shacab ah ay sakaaya xaabsadeen ka bacdina waxaan raadshay nabadoonyadayadii ilaahay waa ku soo guuleeyay hadduu ilaahay ku soo guuleeyana dawladda Soomaaliya aan waxaan maqalnay waa xireen oo waa xiran xabiska annagoo aan dhibaatadan ogeyn aan la kulannay oo ku dhibaatownay ayagii lagu bedelay wax marka go'aankooda ma ahayn sideeda xiriinkooda ma ahayn lagu xiro dhibaatadaas in lagu xiro ma fiicnayn waxa weeye annaga waxaan ka codsanaynaa dawladda Xasan Sheekh Maxamuud waxaan ka codsanaynaa nimankaas inuu cafis u fidiyo oo shacabkii la xiray oo la soo furo shacabkoodii intay goobeen soo fureen waxaan ka codsanaynaa in cafis loo fidiyo nabadoonyadaas waxa weeye haddana annagu intaas waxa weeye dad caradii jiidoodii iyo dalkoodii difaacayaan nahay 60 iyo 8 qofood dad jiida ku jira waaye oo dalkoodii difaacaya oo maalkoodii difaacay maalkii waxa weeye waa tagay
waxa weeye dalkoodii difaacay maalkoodii nimankaas ku tagay waxa weeye annaga naftayda haday ka soo cansheen annagu waxaan go'aansanay inaan naftayda difaacno naftayda aan difaacno hada waxa marka nooga sii xanuun badan nimanka xabiska lagu bedelo xabiskan dhibaatada aan ogeyn aan kula kulannay 60 kaas iyaga 8 qof ajiran lagama helo dhibaato kula kulmin annagoo sida u dhibaataysan qof isbitaal ku geysay iyo qof la hadasho iyo qof ehel aad midna arkayn oo ay ku iimaanayn oo waxaad ku xiran tahay midna aad ahayn hadii qofka la xukumo aan la xukumin oo waxa weeye xukumaada aan la helin iyo waxna booqda sida annagu xabiska ka naalnaalo qabiran oo dad la qabiran oo sida haahin meel isku keenay sida si u qabiran annaga waxa weeye nimankaas ilaahay marka ilaahay nagu soo ilhaameeyo nagu soo guuleeyay waa nagu soo guuleysteen xabiska ayaga ku wareegay dawladda marka waxaan ka codsanaynaa nimankaas in xabiska laga soo daayo oo mar dambe xabis dambe ayaga waxa weeye dawladdan ka codsanaynaa bismillaah waxaan rabaa inaan ka hadlo laba kelmadood oo yar hadalkii raggii iga horreeyay baa dhameeyay insha Allah waxaan rabaa wax yar inaan afxiro marka waxa jira oo maanta cabasho ka nahay nimanka odayaasha lagu xiray saldhigga dawladda Soomaaliya haddana la leeyahay waa la maxkamadeeyay horta marka u horeysa waxaad ogaanaysaan oo aan adduunka u sheegaynaa ama Soomaaliya aan u sheegaynaa waa kuwa dadkay soo daayeen kuwa geedka fadhiya iyo kuwa halkan dhabarkayga taagan waa dadkii xabsiga ay ka soo fureen oo 4 bilood ku dhawaad ka qabiraa waa dadkii yacni ma aragtay nimankaas cadowga ay afduubteen dhaceen maalkoodii dhaceen dhulkoodii gubeen ayaga yacni ma aragtay ay dhibka u geysteen ummadana waxa la rabaa annagu waxaan u haysanay dawladda Soomaaliyeed inay dadka shacabka ilaalinayso laakiin waxaan haddana maleynayna nimanka 70 qofood nimanka xabsiga ka soo bixiyay oo u galiimay oo soo furay inay mudnaan ku leeyihiin baan maleynayna maanta falilah alxamdu ma noqon haddana maxkamadda sharafta leh waxaan maqlay in la leeyahay waxba sooma dayn waxaan cadaynaynaa inay wax soo daayeen waxaan cadaynaynaa dadkii ay soo daayeen in badan oo naga maqan iyo inta dhabarkayga taagan iyo kuwa geedka fadhiya intaba inay ugu badan yihiin inta hadlaysana waa maqlayseen waxaan rabnaa marka insha Allah ta'ala waxaan jecelnahay inaan codsi aan yacni maaragtay aan dhiiba karno dawladdu waa dawladeennii annaga qoriga garabka noo suran habeenkii nala soo daayay iyo maanta inta ka dhaxaysa difaacan ku jirnay cadowgaasaan iska eegaynay ayaga odayaashu nagula dardaarmay oo na yiri iska ilaaliya waan iska ilaalinaynay haddana waa u fadhinaa difaacan ku jirnaa waxaan laakiin rabnaa waxaan kaabaynaana yaa waay waa shaqadii dawladda waxaan haynaa shacab baana dalku dawladda iyada u dhaaratay shacabkoodii baana waxaan rabnaa dawladda aan kaabaynay nimankaa inay noo soo dayso nimankaa inay noo soo dayso odayaasha inay noo soo dayso annaga ayagaa odayaal naga ah shacabka iyo dawladda ayagaa isku xiriiriya shacabka iyo dawladda ayagaa isku xiriiriya hoggaan shacabkay u yihiin dawladdana waxay u yihiin yacni xubin ka tirsanay yihiin sababtu tahay aqlabiyaddii shacabkay haystaan waxaan idinka codsanaynaa nimankaas waa indheheennii mudnaan aan idinkaga malaynayna inaad siisaan maanta waxaan dareemaynaa inaad dallacsiidaan oo ayaga aad macnaha muhiimaddu siday tahay aad yacni uga maalguddaan waxaan idinka codsanaynaa nimankan noo soo daaya odayaasha maxkamadda sharafta leh waxaan leenahay ha laga dhimo waxaan maqalnay xoogaa xeer ilaaliyuhu inuu mar kale aan ku laabanaya inuu yidhi nimankaani waxbaba sooma dayn dadkay soo daayeen hadda annagaa taagtaagan maantay waa maqalnay inuu sidaa yidhi waxaan leenahay cadaaladdana ha la ilaaliyo dadkii shacabka ay soo daayeen haddii loo baahan yahay oo la leeyahay maanta nimankan wax sooma dayn 70 qof bay soo daayeen ilaahay fadligiisay ku ahaatay adinka waxaan idinka rabnaa 70 qofood in badan oo inta ugu badan oo inta idin muuqanaysa iyo in kale hadda maqan intuba way jiraan waxaan leenahay waa diyaar waa la helayaa cadayn ay leeyihiin intaasay ku maqnaayeen waxa kale oo dadku ku sheekay dad badan waxay ku sheekeeyaan nimankan odayaasha nimankan sooma dayne ayaga waxay rabeen inay yacni maaragtay shabaabku iska sii daayaan warin maalkaagii dhacay oo naftaadii xabsi geliyo u qabiran tahay oo binadaadii gubay inuu asxaan kuu falo iska kaa daayo 4 bilood markuu ku haysta ka bacdi oo cadawga masuura gasha waa maya waxaan rabnaa marka horta marka hore waxaan wax yar mar labaad ku celinayaa codsi ku celinayaa madaxweynaha
mudane xasan sheekh maxamuud dadka shacabka adaa ka wakiila ilaah weynaa ka sokow haddana gacanta labaad ee annaga iyo dowladda isku xiriirisaa odayaashay ahaayeen oday dhaqan haddii la waayana dowladdu ma shaqaynayso oo dhismuhu waa xumaanaya waxaan leenahay odayaasha dhaqanka ha naloo soo daayo